Ma jiro qof aan maqal heestan. حمود حبيبي حمود حبيبي Xamuud xabiibi xamuud xamuud xabiibi xamuud xamuud xabiibi xamuud. Dabcan inta badan waanu maqalnay heestaas oo caan ahayd sanadii 2006. Heestaas oo aan jeclaan jirnay oo aan mar walba ku celcelin jirnay oo aan ku ciyaari jirnay. Anagii shakhsiyaan heestan oo u muuqata mid macaan oo naga qosleynayso oo naga farxinayso. Nasiib daro waxaa ka dambeeyo sheeko murug leh oo dhinac madow. Marka aynu bilaawno qisadan waxay ka bilaabanaysaa ilmo yar iyo saaxiibkiisa. Ilmuhu wuxuu lahaa saaxiib magaciisu yahay Xamuud. Wuxuu jeclaa Xamuud aad iyo aad, wuxuuna waqtigiisa oo dhan la qaadan jiray Xamuud. Xiriirkooda wuxuu ahaa mid aad u xoog badan sida walaalo oo kale. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ilmuhu ka kacay hurdada. Hooyadiis waxay sheegtay inuu saaxiibkiisa Xamuud geeriyooday. Dabcan warku wuxuu noqonayaa mid culus oo adag. Xamuud waa uu xanuunsaday, cudur halis ah ayaa ku dhacay, waxaana la geeyay isbitaalka. Halkaas ayuu Xamuud ku dhintay. Hooyada waxay isku dayday inay qariso warka geerida si uusan u murugoon wiilkeeda. Laakiin ilmuhu ma uusan awoodin inuu xakameeyo murugadiisa. Wuxuuna bilaabay inuu qayliyo oo uu ooyo maalintii uu Xamuud dhintay. Wuxuuna doonayay inuu arko saaxiibkiisa. Hooyada waxay isku dayday inay joojiso, waxayna ku tiri inuu dib u dhigo ilaa maalinta xigta. Laakiin ilmuhu wuu diiday oo wuxuu ku adkaystay inuu arko saaxiibkiisa. Ugu dambeyntii hooyada waxay go'aansatay inay u sharaxdo wax walba intay jidka ku jireen oo ay u socdeen isbitaalka. Markii ay tageen isbitaalka, ilmuhu ma rumaysan hadalka hooyadiis oo waxaa qasab ku noqotay in la geliyo qolka meydka si uu u arko oo uu xaqiijiyo in Xamuud uu dhintay oo aan soo noqonayn. Ilmuhu wuxuu hor taagnaa meydka. Hadalkii ugu horeeyay oo uu yiri wuxuu ahaa Xamuud, Xamuud kac, Xamuud kac oo toos. Ilmuhu wuxuu ku celcelin jiray heesta iyo erayada oo rajaynaya inuu Xamuud soo kaco. Wuxuuna maalin kasta ku heesi jiray isla heestaas si yacni Xamuud uu soo kaco uu soo noqdo. Dadkuna markay arkeen iyaguna waa ay la heesi jireen. Sidaas ay heestu ku faaftay oo caan ku noqotay. حمود حمود حبيبي حمود حبيبي Heestan oo aan maqli jirnay anagoo yaryar ayaa dhab ahaantii hees uu ilmuhu u qaaday saaxiibkiisa oo dhintay. Anigii shakhsi ahaan waxaan ka mid ahay dadka la yaabay markii aan ogaaday sheekada heestan. Waxaan u baahanaa inaan dib u eegno waxyaabaha nolosheena sida heesaha oo kale. Maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inay ka dambeeyaan sheekooyin murugo leh. Waad ku mahadsantihiin dhammaantiina daawashadiina. Haddii sheekada idin cajabisay, ha ilaawin inaad subscribe garayso kanaalkeena, like na saarto muuqaalkeena. Nabadey.